muxuu yahay halkaas hadaf aad in badan jeceshahay inaad gaarto? waxaa hubaal ah inaad magacaabi karto hadda, laakiin maxaa ka hortaagan inaad ka dhabayso? noloshu caado xun ayay leedahay, taasoo ah inay kaaga dheesho xitaa qorshe kan ugu fiican ee aad degsato. laakiin in ka badan taas waa anaga maskaxdeena iyo sidaan u fikirno waxa noo diidayo inaan gaarno hadafyadeena. waxaan samaynaa tabaneeyo cudurdaar sababta aysan noogu suurtagelin gaaridda hadafyadeena. taas darteedna anaga isku noqono cadowgeena ugu weyn. aan isku dayno taas inaan soo afjarno, isbeddelna aan samayno maanta. waxaan kula wadaagi doonaa talooyin kooban oo kaa saacidi kara inaad hadafyadaada gaarto. Number 1. dooro hadaf aad dhiirigelin iyo farxad ka heli karto. degso hadafyo adiga ku khaas ah, kuwaasoo kugu dhiirigelin kara nolosha meel sare inaad ka gaarto. marnaba ha raacin dadka kale waxay kula rabaan, xitaa dadkaas haday yihiin familkaaga iyo asxaabtaada. dooro waxaad adiga jeceshahay, laakiin hubso waxaas inay yihiin wax macquulgal ah oo aad aaminsan tahay inaad gaari karto. Number 2. bilow shaqada maanta. hadafyada nolosha waa waxaad ku riyooto inay maalin kuu dhici doonaan. jooji maanta oo dhan inaad social mediaha bilaa macno ugu jirto adigoo rajaynayo inaad maalin hesho waxaad rabto. jooji fikirkaaga ah shaqo un maad heshid, nolol sidaas iyo sidaas ah maad gashid, oo fadhiga ka kac bilowna inaad wax qabato. ugu yaraan isku day inaad samayso maalin kasta 2 shay oo hadafka aad leedahay kuu sii dhoweyn kara. Number 3. la saaxiib guuldarrada. hadaf inaad degsato uuna kuu noqdo sidaad adiga rabtay iskudayga koowaad waa habeenkii xalay ahaa. waad ku fi doontaa hubaal, waad iska shakin doontaa, waxaad isweydiin doontaa maxaan kuu bilaabay waxaan. laakiin waa qayb ka mid ah waxa loo baahan yahay inaad dhadhamiso aadna aqbasho. ha ogolaan marnaba guuldarooyinkaaga inay ku quusiyaan, laakiin u arag guuldarooyinkaas casharada ugu qaalisan ee aad u baahnaan lahayd. mar walbay guuldaro kugu dhacdo waxaad u aragtaa guuldarradaas inay kuu sii dhoweynayso guushaada. Number 4. marnaba ha isku dilin si aad hadaf u gaarto. way fududahay inaad muhiimadaada ugu weyn siiso hadafyadaada, aadna u samayso wax kasta kugu qaadato si aad u gaarto hadafyadaada. laakiinse naftaada inaad riski geliso nasinana u diido waa waxaan faa'iido kuu lahayn adiga. runtaas ku sheeg, balance ka dhigo waxyaabahaad qabato. banu aadam ayaa tahay, nasinaad u baahan tahay sida dadka kale. Number 5. raadi qof ku caawiya. keligaaga ha rafaadin. mararka qaar meel cayiman oo keliya ayaad gaari kartaa, intaas kadibna waxaad u baahnaan kartaa qof ku caawiya. soo marnaba ha ka cabsan inaad qof kale garab weydiisato. Number 6. waa inaad joogtaysaa shaqada. joogtaynta ama u shaqaynta hadafyadaada maalin kasta waxay door weyn ka dheeshaa gaaridda hadafyadaada. qorshe aad lahayd hadduu kuu toosi waayo ha ka tagin hadafkaaga, balse beddel ama raadi qorshe kale oo aad hadafkaas ku gaarto. Number 7. la saaxiib dad yar oo aad isku aragti tihiin. dadka nolosha ku guulaysta asxaabtooda way yar yihiin. ma isweydiisay sababta ay taas ku dhacday? waayo dadkaas wakhtigay asxaab iyo social media ku lumin lahaayeen waxay wakhtigooda geliyaan hadafyadooda. Number 8. naftaada wanaag kula hadal. markastoo wax kaa qaldamaan ama aad guuldaraysato iska ilaali inaad hadallo xunxun naftaada u sheegto. way xanuun badan tahay guuldarrada, laakiin dhanka wanaagsan marka laga eego cashar iyo waayo aragnimo ayaad ka qaadataa meesha. soo hadallo wanaagsan kula hadal naftaada marka la gaaro waqtiyada xunxun. Number 9. u abaalmari naftaada mararka qaar. markaad shaqo fiican qabato oo kale ka farxi naftaada oo abaalmarin yar u sameey, sida inaad soo iibsato waxaad adiga jeceshahay oo kale, ama inaad cunnada aad ugu jeceshahay soo iibsato oo aad keligaaga cunto. taas waxay kugu dhiirigelin doontaa waqtiyada xigana inaad si fiican wax u qabsato. waa intaas muuqaalka saaxiibayaal, I hope inaad ka hesheen. ilaa muuqaalka xiga waxaan idinku ogahay inaad ka dhabaysaan hadafyadiina. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.